wafdi ka socday safaaradda dalka Norway ee Muqdisho ayaa maanta booqasho kormeer ku tagay garoonka tuulada ciyaaraha dalka ee Muqdisho. Wafuudan ka socotay dawladda Norway waxaa garoonka ku soo dhaweeyay xubno ka socday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta. ujeedka wafdigan ayaa ahaa u kuurgelidda howlaha guud ee ka socda garoonka tuulada ciyaaraha dalka ee Muqdisho. Saacid Maxamed Xasan, agaasimaha waaxda dhalinyarada iyo sportska ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa warbixin guud ka siiyay shaqooyinka iyo howlaha guud ee ka socda stadium Muqdisho. Mr. Hakon Esvan oo ah sarkaalkii hogaaminayay wafuudan ka socday safaaradda dalka Norway ee Muqdisho. Dowladda Norway ayaa ah dowladdii bixisay mashaariicda horumarineed ee garoonkan, iyagoo sidoo kale hirgeliyay dayactirka iyo dhisidda qaybo badan oo ka mid ah isbartiibadan. ugu horreyn, agaasimaha waaxda dhalinyarada sportska ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa ka warbixiyay booqashada ay wafuudda safaaradda Norway ku yimaadeen garoonka. run ahaantii wasaaraddu waxay u tahay ahmiyad maadaama hay-addan iyo dowladda Norwayba gacan muhiim ah ay ka qaateen dhismihii garoonka Muqdisho stadium. maantana aan u joogno in dib u habeen aan ku sameeyno inta nooga dhiman. mas-uuliyiintu waxay kormeer ku soo sameeyeen qaybaha kala duwan ee garoonka Muqdisho stadium. run ahaantii waxay soo jeediyeen inay ku faraxsan yihiin ay arkaan horumarka iyo waxqabadka ee Norway ee u sameysay garoonka Muqdisho stadium, oo aan rajeynayno inay wax badan oo kale oo sportiga ay ka qaban doonaan. mar labaad mar saddexaad waan u hambalyeynayna Norway kaalinta horumarinta sportiga ee mar walba ka qaataan. Mr. Hakon Esvan ayaa dhinaciisa dareen farxadeed ka muujiyay booqashadii uu ku yimaaday stadium Muqdisho. Together with my brothers and friends. waan u mahadcelinayaa wasaaradda walaalaha Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. goobtan waa meel aad u wanaagsan. waxaan rajeynayaa inuu martigeliyo kulamo heer caalami ah. aad ayaan ugu faraxsanahay in Soomaaliya haysato goob sidan oo kale ah oo aad u wanaagsan. dhammaantiin waan idiin mahadcelinayaa. sharaf ayay ii tahayna inaan halkan imaado maanta. To fix this place and to bring it back to its former glory. Thank you. si kastaba haatee dowladda Norway ayaa ah dowladdii bixisay mashaariicda lagu dayactirayay garoonka tuulada ciyaaraha dalka ee Muqdisho stadium, iyadoo garoonka tuulada ciyaaraha dalka ee Muqdisho haatan lagu qabto kulamo ka tirsan tartamada kala duwan ee sportska dalka.